Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada aqoon doon channel. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qaabka loo sameeyo CV professional ah anagoo adeegsan doona Adobe Photoshop. CV-ga aan rabno inaan sameyno wuxuu yeelan doonaa qaabkan. Waxaan u qaybin doonaa laba qayb. Qaybtan waxaan ka dhigi doonaa qaybta aan kusoo bandhigayno iconiska, sidoo kale qaybtan waxaan kusoo bandhigi doonaa qoraalada. Daawasho wacan. ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa Photoshop-ka. Kadib waxaan sameysanaynaa new file markaa sameyso haddii aad isticmaalayso Photoshop-ka kuwii ugu dambeeyay ama version-kii ugu dambeeyay waxaa kuu soo bixi doonta A4. balse haddaad isticmaalaynin waxaad tagtaa qaybta width-ga waxaad ka dhigtaa 210, sidoo kale height-kan waxaa ka dhigtaa 297 mm. resolution-ka 300 ka dhig. color mode-kan waxaad ka dhigtaa RGB oo ah red, green, blue. background-kan waxaad ka dhigtaa color gray BB ah. F0 inta markaa dhacdo waxaa leedahay okay, kadibna waxaa leedahay create. ugu horeyn waxaan tegaynaa qaybta shape-ka, kadib waxaan kasoo dooranaynaa rectangle tool. waxaad keenaysaa centerka adigoo ku drag gareynaya ilaa qaybta hoose. intaa markaan sameyno colorka waxaad ka dhigaysaa dark blue. waxaan tegaynaa mar kale shapeska, waxaan ka dooranaynaa polygon tool. shape-ka 6 geeslaha markaan sameyno waxaad double click ku dhaysaa shape-ka, kadib waxaad ka bedelaysaa colorka. waxaad keentaa qaybtan, kadib waxaad dhaysaa Ctrl J u taagan copy. size-kana waa yareynaysaa midka hore. intaa markaan sameyso waxaa leedahay okay, kadib waxaad dhaysaa double click, waxaad ka bedelaysaa mar kale colorka. waxaan tegaynaa shape-ka kale, waxaan ka dooranaynaa shapeska, waxaad ka baabi'inaysaa fill-ka oo no fill ayaa ka dhigaysaa. sidoo kale stroke-gana waxaad ka dhigaysaa color cagaar ah. waxaan dhahaynaa marka file, kadibna waxaan leenahay place linked si aan usoo gelino image-ka ama sawirka. wax yar yaree sawirka, kadibna waxaad ku aadisaa shape-ka. waxaad leedahay okay, waxaad dul tagtaa sawirka, waxaad ku dhaysaa right click, kadibna waxaad leedahay create clipping mask. intaa markaa sameyso waxaa hagaajinaysaa cabirka uu yeelanayo shape-ka. intaa markaan sameyno hadda waxaan u baahannahay inaan qaybtan ka dhigno hal group. si aan hal group uga dhigno waxaan wada dooranaynaa labada shape iyo sawirka, kadibna waxaad dhaysaa Ctrl + G, kadibna groupka ayaa magac u bixinaysaa. waxaan soo gashanaynaa qoraal, kadibna waxaan ku qoraynaa contact. waxaan dib u fiirinaynaa kii hore aan sameynay. hadda waxaan u baahanahay inaan soo gashano iconiskaas iyo qoraaladaas. waxaad tegaysaa shape-ka, kadib waxaad ka doorataa rounded rectangle tool, kadibna halkaa drag ku dhex. intaa markaan dhahno ugu horeyn waxaan ka bedelaynaa colorka. waxaad leedahay okay, kadibna waxaan ka baabi'inaynaa linkiga. waxaad tagtaa marka labada cirif ee dambe, kadib waxaad ka dhigtaa 50 pixel, sidoo kale kan kalena waxaad ka dhigaysaa 50 pixel. hadda waxaan u baahannahay marka inaan copy ka bixino.
si aan copy uga bixino waxaan adeegsanaynaa Ctrl+J. waxaan adeegsanayaa iconiska Font Awesome uu leeyahay. Iconka rabta magaciisa ayaad qoraysaa, kadibna waxaa kuu soo baxaya iconka. Marka ma rabo inaan waqti badan ku bixiyo, kaliya waxaan soo koobiyeynayaa iconadii hore aan u sameeyay. dhammaan markaan soo koobiyeeyo waxaan ku sameynayaa arrangement oo waan hagaajinayaa. hadda waxaan u baahanahay inaan soo gashto qoraalada. inta markaan sameeyo hadda isla sidii oo kale waxaan sameynayaa waan select gareynayaa dhamaantood kadibna waxaan ka dhigayaa hal group. shortcut waxaa leedahay Ctrl+G kadibna waxaa magac u bixinaysaa groupka. waxaan ku soo darsanayaa qaybta skillska. waxaan u baahanahay inaan qaybta ku soo darsado oo ka turjumaysa levelska. ugu horeyn waxaan soo dooranayaa rounded rectangle tool kadibna halkaas ayaan ku drag gareynayaa. waxaan marka hore ka bedelayaa colorka, kadib waxaan copy ka bixinayaa rectangle-ka anigoo adeegsanaya Ctrl+J. waxaan dib ugu laabanayaa rectangle toolka kadibna waxaan ka baabi'inayaa fiilka. waxaan soo dooranayaa stroke colorkiisu uu yahay blue. inta markaan sameeyo waxaan ku soo darsanayaa qoraalada. waxaan dooranayaa dhammaan kadibna waxaan ka bixinayaa copy anoo adeegsanaya Ctrl+J. sidoo kale waxaan ka bixinayaa copy. waxaan ka bedelayaa qoraalka, sidoo kale waxaan ka bedelayaa colorka uu leeyahay shape-ka.
intaa markaan sameeyo isla sidoo kale dhammaan waan dooranayaa, waxaan ka dhigayaa hal group, waxaana u bixinayaa skills. waxaan samaysanaynaa qaybta hoose oo ah hobbies-ka. waxaan u baahanahay inaan iconiska soo geliyo. waxaan soo koobiyeynayaa iconadii hore aan u sameeyey, kadibna halkan ayaan keenayaa. intaa markaan sameeyo waxaan sameynayaa dhammaan ayaan dooranayaa, waxaan ka dhigayaa hal group, waxaana u bixinayaa hobbies. hadda waxaan ka dhamaanay qaybtan, waxaan u gudbaynaa qaybta kale oo aan rabno inaan u adeegsano qoraalada iyo informationka. ugu horeyn waxaan ku qoraynaa qaybta headerka magaca, kadibna waxaan ka dhigaynaa paragraph type center. waxaad ka bedelaysaa colorka, waxaadna ka dhigan kartaa kalarka aad rabto. sidoo kale waxaan soo koobiyeynaynaa qoraalka. waxaan mar kale soo koobiyeysanaynaa qoraalka, kadibna waxaan ku dhahaynaa paste. waxaan arrangement ku sameynaynaa qoraalka, waxaan ku aadinaynaa qaybta centerka ama qaybta dhexe. hadda waxaan u baahanahay inaan sameyno qaybta ay ku qoran tahay personal info. ugu horeyn waxaa soo doorataa shape-ka ama rounded rectangle tool. kadibna waxaad doorataa linkiga, cirifyadana waxaa ka dhigtaa kuwa rounded ah. intaa markaan sameyno waxaan kusoo darsanaynaa qoraalka, kadibna waxaa dhex keenaysaa shape-ka. qoraalka waxaan ka dhigaynaa mid caddaan ah, sidoo kale farta cabirkeeda waan kordhinaynaa. hadda waxaan u baahanahay inaan soo koobiyeyno qoraalkaas. waxaan dhahaynaa copy, kadib waxaan soo gashanaynaa text. kadibna waxaan paste ku dhahaynaa qoraalkan soo koobiyeynay. sababtaan u koobiyeynayna waxay tahay inuu waqti badan inooga bixin, balse adiga waxaad ku qoranaysaa qoraalka u baahan tahay inaad ku qorato. waxaan u baahanahay haddana qaybta educationka inaan sameyno. keliya waxaan sameynaynaa ugu horeyn waxaan group ka dhigaynaa qaybta kore. waxaana u bixinaynaa info. waxaad dooranaysaa shape-ka, waxaad qabataa alta si aad copy uga bixiso, kadibna soo jid adigoo alta haayo. waxaad ku qoranaysaa qoraalka, isla qoraalka soo koobiyey adigoo alta haayo, kadibna halkaa ku sii daa. waxaan u baahanahay marka qaybta educationka inaan soo gelino. waxaan tegaynaa kii hore, waxaan ka soo koobiyeysanaynaa qoraalka.
waxaan select gareynaynaa qaybtan kadibna waxaan ka bixinaynaa copy kaliya waxaan ku sameynaynaa qoraalkan baa wax ka bedbedelaynaa hadda waxaan copy ka soo bixinaynaa kan educationka anagoo alt qabanayno kadibna waxaan keenaynaa halkan ugu dambeyn waxaan soo koobiyeynaynaa dhammaan qoraalkan kadibna waxaan keenaynaa qaybta kale muuqaalkan intaas ayuu inoogu egyahay waxaan aad u rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen kana hesheen intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal ka xiiso badan waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.